warka daawadeeda alkana qodobka ugu dambeeya xogayaha fulinta ee hay'adda urur goboleedka IGAD warkeena Gabeehu ayaa waxa uu booqasho hawleed ku gaaray magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix halkaasi waxa ku soo dhaweeyay prefect gobolkaasi Cali Sabiix sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Cali Sabiix urur goboleedka IGAD ayaa waxa uu gaarsiiyay gobolkaasi Cali Sabiix mas'uuliyiinta deeq agabka loogu talagalay hortagga faafidda caabuqa COVID-19 ugu horeyn prefect gobolkaasi Cali Sabiix ayaa kulan uu la qaatay xogayaha fulinta ee urur goboleedka IGAD waxa uu uga mahad celiyay deeqdaasi ay gaarsiiyeen gobolka Cali Sabiix iyadoo xilligan urur goboleedka IGAD uu dhaqaajiyay barnaamij lagu taakuleeyo dadka ku nool soodimaha dalalka urur goboleedka IGAD si looga badbaadiyo saameynta ba'an ee caabuqaasi COVID-19 iyadoo oo goobahaasi la gaarsiinayo agabka looga xijaabanayo afada safmarka ee COVID-19 amba coronavirus Muuse Aadan Miigane prefect Cali Sabiix ayaan ku hakanaynaa hawsha iyo dagaalka kula jirno xanuunkan coronavirus maadaama Cali Sabiix ay tahay gobol laba dalale Itoobiya iyo Soomaaliya taas wad ogtiin dadkeenu in dad ay baadiye u badan yihiin ay sida daraadeed si shacabka ay u soo gaadhin goor waliba xadka u fuujinayna donc xilliga maanta waxaan qalabka naloo keenay wax weyn boorta noo qabanaya haday dhakii ciidamada tahay haday dhakii dadka ku shaqo lahaa caafimaadka ay tahay si ummadda loo gargaaro si ummadda karantiina loogu sameyn karo si ummadana loo daweyn karo waxaan leenahay waa mahadsantiin kooxda waftiga IGAD ka socday qodobka ugu door karoon warka dibaddana dawladda Lebanon kadib markii maalmihan soo dhaafnay ay sheegtay inay khafiifinayso go'aanada guriga jooga ah ee lagu xakameynayo caabuqa COVID-19 ayaa waxa soo baxaya oo ay sheegtay dawladdaasi inay qaaday talaabooyin kale oo ka dhan ah cudurkaasi kadib markii la helay kiisas cusub oo ah dad laga arkay cudurka COVID-19 saasi waxa warbaahintu xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Xasan Diab waxaana uu tilmaamay in dawladda Lebanon hadda la arkay kiisas cusub oo cudurkaasi qaba iyadoo cabsi laga qabo faafidda cudurkaasina waxa mar kale la soo rogay ayuu yiri talaabooyinka looga hortagayo caabuqaasi COVID-19 guud ahaan dalkaasi Lebanon cudurka COVID-19 ee safmarka ah waxa laga helay dad gaaraya 870 qof iyadoo cudurkan dalkaasi ay u dhinteen 26 qof dawladda Lebanon ayaa sheegtay in 100 qof oo kale maalmihii u dambeeyay laga helay cudurkaasi taasina ay keenayso in go'aanadii dib loo soo celiyo si looga hortago saameynta ba'an ee cudurkaasi uu leeyahay daawade qodobareedkaas ay u dambeeyay wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warku waxa idin akhrinayay anigoo Naasir Axmed qaybta fadhabaalaha waxa soo tabinayay Cabdilaahi Afcase warka war lamidana intaan kulmayno saasiyo nabadgelyo walaalayaal